dowladda Armenia ayaa isdhiibtay 4 bishii December ee sanadkii 1920 markii ciidamadii cas ee gudaha u galeen Yerevan oo ahayd caasimadda dalka kadib markii la aasaasay jamhuuriyaddii labaad ee Armenia markii uu la wareegay xukunka waddanka Stalin wuxuu ku dhawaaqay aasaaskii John Armenian Soviet Republic bishii February 18 1921 haddaba daawade waa naga inta qaybtay koowaad ee dagaalkii u dhexeeyay labada wadan Armenia iyo Azerbaijan qaybta labaad midowgii Soviyetka ayaa ku daray Nagorno-Karabakh Azerbaijan sanadku markuu ahaa 1923 Joseph Stalin wuxuu go'aansaday inuu ku daro Nagorno-Karabakh oo ah dad u dhashay Armenia iyo Azerbaijan isla markaana la siiyo ismaamul iyada oo la ilaalinayo inta badan Azerbaijan ee Nagorno-Karabakh oo ka go'doonsanaa Armenia ujeedka tallaabadani waxay ahayd in lagu beero miraha isku dhaca labada dal si loo hubiyo in ay saameyn joogto ah ay yeelato mowduucyada iyo waliba isku hor imaadyada u dhaxeeya labada wadan ayaa sii socday ilaa uu burburkii midowgii Soviet dhaco soo noqoshada dagaalka kadib xurnimadii laga qaatay midowgii Soviet 3 sano ka hor kala jabkii midowgii Soviet Azerbaijan iyo Armenia waxay dareemeen in madax banaanidoodu ay ka badan tahay sidii hore waxayna dib u soo celiyeen dagaaladoodii hore goobtii si ay u cadeeyaan xuquuqdooda magaalada Nagorno-Karabakh khilaafka ayaa soo afjaray sanadku markuu ahaa 1991 markii labada dal ay ku dhawaaqeen in ay ka xoroobeen midowgii Soviet dowladda gobolka iyo qowmiyadda qaar ma aysan doonayn in ay go'aansadaan Azerbaijan oo iyadu u dirtay ciidamadooda si looga hortago in ay sidaas sameeyaan si kastaba ha noqotee dowladda Yerevan waxay sidoo kale dirtay ciidamadeeda dagaalka ka socda ilaa sanadku markuu ahaa 1993 wuxuuna galaaftay nolosha in ka badan 30,000 oo bilyan oo kala tag ahaa kuwaas oo u badnaa rayd bishii December 10 1991 dhulku wuxuu ku dhawaaqay gooni isu taag oo dhammaystiran iyo waliba aasaaska jamhuuriyadda Karabakh Highlands magaceeduna waxaa loo bedelay jamhuuriyaddii Artsakh balse wax aqoonsi ah oo caalami ah kama helin xitaa Armenia oo waxay noqotay jamhuuriyaddii gooni isu taagtay oo kaliya sanadka markuu ahaa 1993 ciidamadii Armenia waxay si buuxda ula wareegeen dhulka iyo waliba sidoo kale 7 aag oo xuduudda Azerbaijan ah oo lagu qiyaasay 20% dhulka Azerbaijan dagaalku wuxuu kaloo sababay isbedel weyn oo xagga bulshada ah halka oo lagu qiyaaso 1 bilyan oo barakacayaal ah oo labada dhinacba badankoodu waxay ahaayeen Azerbaijaaniyiin waana mahadsan yihiin iyaga oo dhulku wuxuu noqday mid si weyn Armenia u leh heshiiska xabad joojinta ee labada dal dhexmaray sanadku markuu ahaa 1993 golaha ammaanka wuxuu soo saaray qaraar tirsigiisu yahay 822 iyagoo oo ugu yeereen ciidamada Armenia in ay ka baxaan dhulalkii ay ka qabsadeen Azerbaijaaniyiintu balse aysan u hoggaansamin qaraarka sanadku markuu ahaa 1994 dagaalkii labaad dal wuxuu ku dhammaaday saxiixii heshiiskii xabad joojinta ahaa balse waxay sii socdeen xaalad dagaal maxaa yeelay ma aysan saxiixin wax heshiis ah nabadeed ee dhexdooda ah tani waxay ka dhigtay gobolka in uu udub dhaxaad u noqdo khilaafka soo cusboonaaday ee u dhaxeeya labada dhinac taas oo mararka qaar sheega dhimasho iyo waliba dhaawac labada dhinac ah gaar ahaan sanadku markuu ahaa 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof gobolka Nagorno-Karabakh ee hadda waxay ku taallaa gudaha Azerbaijan iyo waliba caasimadda Qundanti maadaama aysan helin wax aqoonsi caalami ah oo ay ku saabsan tahay madax banaanideeda waxayna hadda iska leedahay Azerbaijan waxayna hoy u tahay qiyaastii 150,000 oo qof oo lagu qiyaaso ku dhawaad 95% mid ka mid yihiin Armenian iyo waliba nasasho Azerbaijan ah territory-gu uu liitaa kheyraadka wuxuuna ku tirsan yahay oo kaliya beeraha xoolaha iyo sidoo kale soo saarista wax soo saarka cunnada haddaba waa naginta barnaamijkeena maanta aan ku faaqideynay dagaalka soo jireenka ee u dhaxeeya labada dal Azerbaijan iyo waliba Armenia waxaan fili doonaa in aad wax badan ka ogaatay halka uu ka soo
kulmay ama uu ka soo aas-aasmay dagaalka u dhexeeya Armenia iyo Azerbaijan, taasi oo lagu eedeeyo inuu ka dambeeyay Sofiyeetigii xilligaa xukumi jiray labada dal ee gumeystay ee Ruushka. haddaba inta ku kulmi doono barnaamij caynkan oo kale waxaan idin leeyahay aniga iyo bahda Sahan Cable TV sida ay nabadgeliyo. Oh